بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب تقاليقة وسلمان دعر halka iga daawanaysaan waa Salmaan Dacar kusoo dhawaada muuqaal cusub. Maanta waxaa idiin wadaan muuqaal ayaab ugu dhimanaysaan. Muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay dad aan maaragtay dad madow ah ama Afrikaan ah oo cunay waxyaabo ayaab ugu dhimanaysaan. Fadlan intaan muuqaalka u gudagelin subscribe noo saar waa mahadsantahay. Muuqaalka dadka qaar waxaa laga yaabaa inay maaragtay dhibsadaan sababtoo ah dadkan waxay cunayaan waxaa laga yaabaa inaad maaragtay la yaabtid. Dadka qaarna waxaa laga yaabaa inay caadi la tahay. laakiin waxaan rabaa maanta inaan muuqaalkan idinla wadaago. Muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay dad Afrikaan ah ama dadka madow ah oo kulli duruuf ay ka muuqato isla markaana kulli dalalka maaragtay dalalka Afrikaanka ee dadkoodu baahan yihiin ka soo jeeda. Marka waxay cunayaan waxyaabo qof Soomaali ah maanta aan hadduu si kasta u baahdo aan ka suuragelin inuu cuno. Marka kama hor dhacayaan aan isla bilowna muuqaalka. Qofkii shaah haysta wuu soo qaadan karaa shaahiisa. Haye inoo bilaabo muuqaalka. Hata mtasema mimi nilikuwa nakula ukali. Mboga bwana. Tamu bwana. Hata kazi waje. Muuqaalka sidin kaga muuqato dadkan waxay cunayaan kabajaan. Kulli qofka garanaya kabajaan kulli magac kaleeto asaga magaciisa kale laakiin guud ahaan marka la fiiriyo cayaankan baalaleyda iyo kabajaanka iyo waxyaabaha roobka markuu aadka u badan bay ka mid yihiin. waa waxyaabahaas waxay cunayaan. qaar waxay sameynayaan isagoo nool bay cunayaanba oo biibiibayo. qaarna waxay sameynayaan wayna cunayaan bacan waa ku guranayaan yacni kayd hadhow inay cunaan dib ka cunaan. marka ilaahay noloshaas waxaan u malaynayaa inuusan annaga noo baahin aan ku socono. Ona imechoka bwana. Mkono kidogo mkono. Nichukue hili nikidondoa hapo. Mkono kidogo mkono. Ona imechoka bwana. Mkono kidogo mkono. Nichukue hili nikidondoa hapo. Wallahi dad nolol aad u adag waaye kulli qofkan cayayaanka xasharaadka oo nool cunay kulli waxa u geyn kara gaajo u geyn karto. anigu ma maraynayo hadda qof dheragsan oo cuno iyo hilib caadi ay wax fiican oo caadi ah qof heli karo inuu waxaas cunayo ma u malaynayo. laakiin qof kasta oo maaragtay ilaahay wuxuu cuno iyo wuxuu xirto iyo wuxuu cabo uu ilaahay siiyey ilaahay inaad u mahad celiso oo ilaahay maaragtay aad ku shukrisid baa ku wanaagsan oo tiraahdo alxamdulilah ilaahay waxaan haystay siiyey bay mahad sugan tahay. sababtoo ah ilaahay wuxuu yidhi kii mahad celiyana waa u kordhinaynaa kii diidana cadaabkaygu waa daran yahay. marka wax kastoo aan haysano waa inaan ilaahay ugu mahad celino sababtoo ah maantaytu waxa dadkan haysto kuma haystaan soo maha. cawaan matiido qof diin leh oo muslim ahata. marka waa nolol aad u adag xanuun badan wallaahi billahi ku socon. Roho sumo. Mlama. Hata mtasema mimi nilikuwa nakula ukali. Mboga bwana. Tamu bwana. Hata kazi waje. Mkono kidogo mkono. Ona imechoka bwana. Mkono kidogo mkono. Nichukue hili nikidondoa hapo. Mboga bwana. asxaabay waa aragtaan kulli muuqaalkaas waa muuqaal aad wallaahi billahi aad iyo aad aan ula yaabay. muuqaalkan markaan arkay hadda maahan mar horaan arkay laakiin firaaqa aan uga soo hadlaan waayey ama aan kusoo bandhigo. marka waxay ku tusaysaa annaga maanta waxaa laga yaabaa inaan ka cabanayno waxyaabo fara badan oon leenahay waxaas iima dhammaystirno waxaas baan la ahay waxaas baa saas iga ah inaan leenahay laga yaabo. laakiin hal ogow wax kasta oo maantayto aad ka cabanayso wax ka daran dad bay haystaan oo xaqiiq ah. dadkaana ka mid maantayto adiga waxaa laga yaabaa inaad bariis iyo baasto iyo suugo iyo hilib inaad awoodid inaad cunto
shah aad cabto aad qaxwayso baashaasho aad maaragtay nabad ku seexato guri fiican qurux badan aad seexato laakiin qofka halkaas fadhiyo waxaas cunaya yaa adi isku mid matiin marka muuqaalkaas inay la wadaagaan jeclaystay asxaabta qaaliga waxaa idinka codsanayaa waxaa jira dad badan oo mar walbana waan sheegaa subscribe aan noo ahayn oo na daawado marka subscribe noo saar adoo mahadsan naguna dhiirigeli inaan muuqaalada sii wadno aad iyo aad baa idin salaamaya asxaabtayda qaaliga waa mahadsantihiin